qisadani waa qiso kaa ilmaysiin doonto. sheekhan aad sawirkiisa u jeedaan wuxuu u dhashay waddanka Mauritania. wuxuu yidhi aniga oo joogo masaajidka nabiga calayhi salaatu wassalaam ee Madiina ku yaallo, habeen jimcan ay tahay, ayaan in badan nabiga calayhi salaatu wassalaam ku salliyey. kadibna waan seexday. markaan seexday waxaa iigu imaaday saxaabiga Abi Muusa al-Ashcari radiyallahu canhu. wuxuu igu yidhi buu yidhi, waxaa kuu yeerayo Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam ee soo kac. markaasaan soo kacay buu yidhi. markaan soo kacay waxaan arkay Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam oo geed timireed gacanta ku hayo. dhinaciisa midig waxaa joogay saxaabada muhaajiriin ayaa joogay. dhammaan muhaajiriin geed timireed bay gacanta ku haysteen. xagga bidixna nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa ka xigay ansaarna dhammaantooda geed timireed bay gacanta ku haysteen. kadib nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ii dhiibay geedkii asaga gacanta ku hayay geed timireedkii buu ii dhiibay. markaasa wuxuu igu yidhi, muhaajiriin iyo ansaar dhammaan saxaabada adiga ayaa amiirkaaga dhigay. waxaad aadaan waddamada Afrika aada, geed timireedadan waddamada Afrika ku soo beera. kadib annagii waan soo baxnay buu yidhi, anaa hogaaminaya saxaabada. Madiina markaan ka soo dhaqaaqnay, waddanka aan u socno waa Mauritania oo waddanka sheekha u dhashay weeyaan. Mauritania iyo magaalada Madiina inta u dhaxaydo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu meeshaa nooga sameeyey waddo qurux badan iftiimayso ayuu Ilaahay noo sameeyey buu yidhi. sidii baan waddanka Mauritania ku tagnay. markaan tagnay Mauritania, waxaan tagnay ayagoo nala sugayo geed timireedkii waddanka Mauritania lagu beeri lahaana meeshii lagu beeri lahaa naloo diyaariyey. kadib geedkii baan aniga gacantayda ku beeray buu yidhi. kadib saxaabadii baan qaybiyey buu yidhi. muhaajiriin waxaan u diray buu yidhi dhanka midig, ansaarna waxaan u diray buu yidhi dhanka bidix. mid walba suu u beerahayay, geedka usoo beerahayay. muhaajiriin say u soo socdeen waxay imaadeen geedkii ugu dambeeyey ay ku beereen waddanka Soomaaliya. ansaarna sidoo kale waddamada kale markay soo marmareen, Kenya ay soo mareen, meeshii ugu dambeeyday ay ku beereen waxay noqotay waddanka Soomaaliya. waddan kastoo Afrika ka mid ah hal geed baa lagu beeray buu yidhi. waddanka Soomaaliyana 2 geed baa lagu beeray. ansaarna way ku beertay, muhaajiriinna way ku beertay buu yidhi. marka sheekhi wuxuu yidhi, waan noqonay magaalada Madiina ayaan ku noqonay buu yidhi. kadib Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam markaan u tagnay, waxaan aragnay geedihii aan soo beernay oo baxay, miro keenay, qurux badan baan aragnay. Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallamna waa ku farxay. ma doonaysa inaad nabiga calayhi salaatu wassalaam aad ku riyoto badi nabiga